aasaasay bishii Agosto ee sanadkii 2006. Haruun Macruuf ayaa inoo hayay qaybtii afraad ee tixanaha aasaaska Al-Shabaab. muddo kadib markii ay maxkamaduhu bilaabeen inay isku ballaariyaan dalka intiisa kale ayay si cad u soo shaac baxday in dhallinyarada jihaadiyiintu ay iska soocayaan xubnaha kale ee maxkamadaha. sheekh maxamed cabdulaahi baakistaan oo ka tirsanaa dhallinyarada xilligaas waxa uu ii sheegay in mar walba ay dhallinyaradu ka shakisnaayeen xubnaha kale ee ay ku wada jireen maxaakiimta islaamiga. shabaabku ayagoo maxaakiimta ay jidho sheekh shariifna uu yahay guddoonka guud ee golaha tanfiidka ee midowda maxkamadaha islaamka ayadoo saa ay jirto ayay magaranaysaa shabaabna gooni magaranaysaa u tunaayeen oo isyaqiineen is aqoonsanayeen oo waxaad arkaysaa 1,000 nin oo maxaakiimta ah 100 shabaab haddii ay ku dhex jirto ma aaminayaan oo magaranaysaa gooni bay u shuureynayaan oo dadka kaleba ka shakinaya oo waxa weeye xitaa madaxweynaha ayaan xusuustaa maalin maalmaha kamid ah darees oo xidhnaa in ragga qaarkood ay soo jeediyeen in loo saxaabo dareeska oo xidhay dartii sababtu waxa weeye wuxuu xidhnaa magaranaysaa koor buu xidhay koorkuna dee mid hore loogu yaqiina ma ahayn moogtahay waxaan xusuustaa maalintaas inuu aaday safarkiina uu ku tegayey maxay amerikaanku inta badan ay lahaayeen maxay alqaacida jirta Soomaaliya magaranaysaa alqaacida qabsatay waxyaabo caynka ah marka wuxuu waatiin wadaadada ay ku baahiyeen internetyada iyo magaranaysaa meediyada inta badan inaysan alqaacida ahayn waatii ayagana reer galbeedku inay yiraahdeen ayagaaba laba u qaybsan oo waxaana soo baxday inay laba u qaybsan yihiin ay islahayn. jahawareer iyo dhibaato xoog leh ayaa soo wajahday jihadii ay maxkamaduhu u socdeen sababtoo ah culimmadii taageersaday salafiya jihaadiya iyo dhallinyarada jihaadiyiinta laftigooduba siyaabo kala duwan oo badan ayay u dhex galeen maxkamadihii islaamka. culimmada taageersaneed dhallinyarada oo ay ka mid ahaayeen sheekh xasan daahir aweys iyo sheekh xasan turki waxay xubno ka noqdeen golahii shuurada. sidoo kale mid ka mid a ragga isbahaysiga weyn la lahaa dhallinyarada oo ahaa sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde waxa uu noqday xogayihii gaashaandhiga ee maxaakimta. laakiin dhallinyaradii kale ee jihaadiyiinta laftigooda waxay qabteen jagooyin muhiim ah. tusaale ahaana horjoogihii mucaskarka salaaxudiin axmed cabdi godane waxa uu noqday xogayihii guud ee guddiga fulinta ee maxaakimta. macallin aadan xaashi cayro waxa uu noqday taliyihii guud ee ciidanka maxaakimta. sheekh mukhtaar roobow abumansuur waxa uu noqday ku-xigeenkii xogayaha gaashaandhiga ee maxaakimta. mid ka mid a ragga sida weyn u maalgeliya dhallinyarada khaliif maxamed warsame khaliif cadale waxa uu noqday ku-xigeenkii xogayaha arrimaha dibadda ee maxaakimta. warbaahintana waxaa joogay afhayeenkii maxaakimta cabdiraxiim muudey. xogayaha caafimaadka ee maxaakimta waxaa noqday muxyidiin maxamed cumar muxyidiin ilka case. waxbarashadana waxaa qabsaday fu'aad maxamed khalaf fu'aad shongole iyo taliyihii amniga maxaakimta ee gobolka banaadir cabdulaahi cali naxar abu cutayba. dhallinyaradu waxay bilaabeen inay cududooda mideeyaan ayna samaystaan hoggaan rasmi ah. bishii Agost 2006 ayaa horjoogayaashii mucaskaraadka iyo saraakiishii sare ee jihaadiyiintu ay u arkeen in la soo gaadhay xilligii ay urur ahaan u dhismi lahaayeen. wakiilada 4 qaybood oo siyaabo kala duwan ugu jiray maxaakiimta islaamiga ayaa isugu yimid magaalada Muqdisho si ay u dhisaan dhaqdhaqaaq cusub. 4taasi qayboodna waxay kala ahaayeen 2 mucaskar oo xoog iyo cududba ku dhex lahaa maxaakiimta islaamiga ciidan ahaanna u dhisnaa iyo 2 garab oo ka soo go'ay maxkamadihii qaabka beeleed ku salaysnaa ee maxaakiimta islaamiga. garabka koobaad waxa uu ahaa mucaskarkii salaaxudiin ee magaalada Muqdisho ee uu horjoogaha u ahaa axmed cabdi godane. garabka labaadna waxa uu ahaa mucaskarkii raaskamboni oo uu horjoogo u ahaa sheekh xasan turki. labadaas mucaskar waxaa ku soo biiray garabyo ka tirsan 2 maxkamadood oo islaami ah oo kala ahaa garab ka mid ah maxkamadda islaamiga ee degmada yaakshid iyo maxkamaddii islaamiga ee ceelgaras ee gobolka galguduud. wakiilada 4taasi qaybood oo gaaraya ilaa 30 ayaa ku shiray guri ku yaala magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa warshaddii baastada iyo hotel Ramadaan. waxaana halkaasi lagu yagleelay urur ay leeyihiin 4taasi qaybood waxaana loo bixiyey Al-Shabaab. waxaa halkaasi lagu doortay hoggaankii ugu horreeyey ee rasmi ahaan shabaabku yeeshaan. dadkii shirkaasi joogay waxay ii sheegeen in halkaasi lagu doortay markii ugu horreysay amiirkii ugu horreeyey ee uu yeesho ururka Al-Shabaab. waxaana loo doortay Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Caraale oo ka yimid dhinaca mucaskarka salaaxudiin. mucaskarka raaskamboni waxaa la siiyey ku-xigeenkii amiirka Al-Shabaab waxaana iyagu ay jagadaasi siiyeen sheekh maxamed axmed islaam sheekh axmed madoobe. sheekh axmed madoobe oo joogay madasha lagu aasaasay Al-Shabaab ayaa iiga warramay wixii lagu wada hadlay. waxaa jiray markaa annaga kamboni markaa aan sidaa dadka ugu sii firfircoon baan ahayn qaybihii dagaalamayay ayaa waxay noola yimaadeen fikir ah inaan midowno
oo annagu aan isu keenna fikira inaan qaadano system gooniya oo annaga isku xiran oo maxaakiimtaan ay leeyihiin marka dad badan baa ku jira kuwa waxaa ku jira manhaj ahaan aan caqiid ahaan dursannahay iyagoo markaas ashaaciro iyo saas oo kale noocaasa ku waxaynaya adu markii dambe cadaadisyo badan oo yimid waxay noqotay inaan labadanadii group aan wada fadhiisano fadhi dheer oon gallay kadib yaa waxaan ku heshiinay inaan system gaar ahaan markii dadkii dhalinyarada ah ee markaas ishaarayay inay dad system jihaadi ah oo ka baxsan sistamyadan kale ee iska socda inay yihiin inaan ku midoono oo aan urur markaas dhisano ururkan hadda magacaan ay qaateen al-shabaab aanu qaadanay markaas oo nin ismaaciil caraale la yidhaahdo oo markaas bakistaan ka yimid arday ka ahaa ay keeneen ay yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaad mas-uuliyadda na siisaan oo ninkaasi uu noqdo mas-uulka xarakada idinkuna reer Cambodia aan naagta iyo mas-uulka shuurada ay yeelataan sidaasaan ku heshiinay ismaaciil caraale markaa uu noqday ninkii ahaa mas-uulka ururkaas ka noqday aniguna waxaan ka noqday ku-xigeen baan ka ahaa xasan cabdullahna wuxuu ka noqday shuurada marka waxaa maqla in lagu aasaasay guri ku yaala muqdisho inta u dhaxaysa caymiska iyo warshada baastada oo la dhihi jiray baytul wuxda sax miya maya ma ahayn gurigaan fadhinay wuxuu ku yaalay inta u dhaxaysa ex control iyo meesha la yidhaahdo meeshan hotelkii ramadaan abukar ramadaan baytul wuxda guri loo kaleysnaayo kokoole kasoo horjeeda lagu shiri jiray bu ahaa waxaan kaloo ku sheegaya waxyaalaha aada cajiibka u ahaa marka aniga iyo ismaaciil caraale lanoo magacaabay yaa wuxuu in cabdigabeeleed waxaan u baahan nahay waan idin iibinayna oo maxaad nagu iibinaysaa isqariya yaan laydin arkin qiimo yeesha qofka 3 bilood baa la ballaminaya maxaa lagu ballamin waxaa weye inaan qofkaa la aro qofka casiis uu noqdo oo war hadda nebi maxamed wasfigiisi sidan ayuu ahaa mas-uuliyadda oo qaadaysa dadkiina aan iska qariyin maya waxa weye dadku marka lagu waayo aragtidaada lagu diido qadarin bay yeelanaysa waa waxyaalaha hadda isaga uu ku dhaqmayo oo waxaa 2006 anaga tan ahaan nagu soo jeediyeen sidaas iyo sidaas yeelo waxaan isleeyahay mana aha shay diini oo nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisu leeyan dhex joogay waxna la cuni jiray dhex fadhigi jiray markaad ku laabato shirkii lagu aasaasay ururka hoggaankii maxkamadaha laguma marti qaadin soo ma hogaanka maxkamadaha waa dadkay durayaan bay kamid ahayn oo matala ay leeyihiin kuwa shaaciro wey qoladaasi ka waa suufiye ka waa sidan inta kale oo dhan wax la durayay buu ahaa laakiin aanan annaga laftirkeeda markaa isku waafaqsanayn si dhaba way ogaayeen in meesha wax badan socdaan laakiin maynan ogeyn ama laguma marti qaadin ama si dhaba looguma sheegin wax noocaasoo lagu heshiiyey ina jiro madasha lagu aasaasay ururka al-shabaab laguma marti qaadin lagamana talagelin hoggaankii sare ee midowda maxaakiimta islaamiga ee uu hogaaminayey sheekh shariif sheekh axmed guddoomiye ku-xigeenkii golaha maxaakiimta sheekh cabdulqaadir cali cumar ayaan weydiiyey in maxkamaduhu ay ka warqabeen dhismaha qarsoodiga ah ee ururka al-shabaab ee xilligaasi runtii waxyaabaha oo la yaab kale ay ka mid ahayd in oo iyagoo oo golihii ay ka wada tirsan yihiin oo lagu wada jiro ayaa annaga sidan ugu maqaalka ah oo mar dambe aan xog ku helnay ayaa la aasaasay markaas waa wax iyagu gaar ay u samaysayna ahayd wax annagu aan xog ka haynana ma ahayn laakiin dib unbaan ka maqalnay in la sameeyey barnaamijkaas dhismaha qarsoodiga ee ururka al-shabaab kadib waxay xubnihii ururkaasi bilaabeen inay curyaamiyaan maxkamadihii islaamiga ahaa milatari ahaan iyo siyaasad ahaan intaba waxay bilaabeen inay ku duulaan deegaano hor leh iyaga oo aan kala tashan hoggaanka maxaakiimta goobaha ay ku duuleen ee ay qabsadeenna waxaa ka mid a magaalada kismaayo jilib baardheere bu'aale ilaa xadka kenya kismaayo waxay ahayd goobtii ay maxkamaduhu kala kulmaan mucaaradadii ugu horreysay ee xukunkooda ka hor timaada su-aal ayaan weydiiyey nimankii oo odayaalka u ahaayee dee shuurada ku jiray rag un maalintaa fadhiyana waa la helayaa markii loo baxay magaalada kismaayo oo ciidan uu aaday su-aal baan weydiiyey odayaalkii shuurada rag kamid ah yaa kamid aha raggaas raggaa waxaa kamid ah cumar imaan ayaa kamid ah sheekh cumar imaan rag badan oo fadhiya way jireen marka waxaan ku yidhi yaa diray ciidamadan meesha aaday oo xaggaan u diray maadinka wax ku og markaas guddoomiyaha maxkamaduhu wuu maqnaa sheekh shariif safar ku maqnaa laakiin waxaa joogay ragga kale odayaalka ayaa joogay anigoo dee gudoomiye ku-xigeenadan kamid ahaa marka yaa diray yaa mas-uuliyaddan yaa mas-uulka oo ciidankan diray oo maaragtay maxaasoo loo diray jawaab saxa waa laiga siin waaye sababtu waxay ahayd yani maaragtay wixiiba waxay ahaayeen wax dadka in badanoo kamid in ay diidan tahay laakiin haddana sidii loo xakamayn lahaa ay ku culus tahay ayay noqdeen sheekh axmed madoobe waxa uu ii sheegay in xilligaasi al-shabaab ay qorshaynayeen inay imaarad islaami ah kaga dhawaaqaan koonfurta soomaaliya taasi oo ka madax bannaan maxkamadaha islaamiga waxaa dhacday markaa haaruuno markii aanu ka soo baxnay dagaalkii kismaayo aan soo galay ee kismaayo aanu nimid
waxaa lasoo diray guddi ka tirsan maxaakiimtii oo in cabdigodone oo markaas salaaxudiin ku galay shirinta maxaakiimta oo ahaa xogeyaha maxaakiimta islaamiga ahayd waftii uu hogaaminayo sagaalaada keene waan wada hadalnay waxyaalaha qariibka waxaa kamid ahaa guddigaa waftigii la socday intuu ka yimaado habeenkii oo dhan inaan anagu dood iyo isku hayno oo aan isweydiinayo waxa uu ka doodaya kana ay tahay meeshaan iyada hadda magaala inagaa awoodda ciidanka ugu badan reerkaas kaambooni iyo salaaxudiin iyo markii la yidhaahdo aan system dhisana ciyaara islaamiya halkan ka dhisno aan ka yeelno wax badanoo noocaas oo kale ah waxaa xasilmiga marka xilliga maamulka gobolka uu jiray ee la dhisay yaa waxaa maalintii dambe ka war helay in dad laga qabanayo magaalada gudaheeda habeenkii dad baa laga baxay hebel baa laga baxay sheeko badanoo noocaas oo kale arrintii aan raadiyey ibraahim xaaj jaamac iyo nin yaro cabdullahi yeelo la yidhahdo la shaqeynaya gruub noocaasa marka waxaan ka war helay inay nooc amni ah ay u shaqeynayaan oo ah inay dadkii lala baxayo waxyaalo la weydiinayo dhibaato kale magaalada gudaheeda ay ka wadaan taasaa markaa waxay sababtay inaan iyagii laftooda magaaladii u sheegeen inay ka baxaan sababtoo ah wixii maamul baanu ahayn waxaana dhibaatada ugu badan ah inaad adigu maamul meeshii ka tahay sumadii adigu ay gacantaada ku jirto haddana adiga intaad afka soo duubato aad waxsinayso oo qof xadayso oo qof aad kari karayso inaad intaad u yeedho maxkamad istaajiso sharciga lagu qaado dembigiisa aad ku fulin karto haddii dil loola hata aad ku fulin karayso haddana in dadkii nooca argagaxana loo geysto wixii in ay noqoto wax iska dal adiga aad xadayso maamulkaaga xadayso. dadka sida dhow ula socday soo ifbixii maxkamadaha waxay qabaan in ururka al-shabaab ay mas-uul ka ahaayeen daandaansigii dowladda soomaaliya ee fadhigeedu ahaa magaalada baydhabo oo xilligaasi ay si qarsoodi ah u ilaalin jireen ciidamada dowladda etoobiya waxaana xilligaasi ay ciidamada maxaakiimta ku sii siqayeen inay hareereeyaan magaalada baydhabo oo xarun u ahayd dowladda federaalka ku-meelgaarka ciidamada dowladda kasakuna waxaa magaaladaasi difaacayay ciidamada dowladda etoobiya guddoomiye ku-xigeenkii guddiga fulinta ee maxkamadaha islaamka sheekh cabdulqaadir cali cumar ayaa iiga warramay dhawaanshada iyo siqida la siqayo waxaasoo idil waxay ahaayeen waxyaabo markaas aan runtii aan maamul iyo xakamayn midna aan ku soconay ahaayeen dadku waa laga doodi jiray waa laga hadli jiray laakiin dee iyadoo doodii iyo hadalkii uu socdo iyo war waxaan hala joojiyo iyo ayay arrintii markaa dagaalka u iska dhacay disembar 24-keedii 2006 dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay soomaaliya ciidankeedu joogaan xilligaasna waxaa dagaaladu ka socdaan agagaarka saddex geesoodka baydhaba buurxakaba iyo iidaale kuwaasi oo dhex marayay maxkamadaha iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwii etoobiya shabaabku waxay gooni u sooceen ciidankoodii oo ay geeyeen dhinaca degmada diinsoor iyo iidaale dagaaladii ka dhacay iidaale iyo diinsoor ayaa la sheegaa inay ahaayeen dagaalada ay al-shabaab si soocan uga qayb gashay waxayna ahaayeen dagaallo ay dhallinyaro badan ku dhinteen islamarkaana ay ku dileen ciidamadii ugu badnaa ee dowladda etoobiya kaga le'da soomaaliya bishii disembar ee 2006 dhammaadkeedii waxaa maxkamadaha lagaga guulaystay dagaaladii ka dhacay muqdisho iyo gobolladii sida dhibta yar ay ku qabsadeen oo dhan ciidamada etoobiyana waxay soo galeen caasimaddii soomaaliya ee muqdisho laakiin markiiba maxkamaduhu waxay ka soo kabteen jabkii gaari waxaana taasi ugu wacnaa ciidankooda oo aan ka bixin deegaanada halbowlaha ah sida magaalada muqdisho hoggaankii ururkuna waxay isku qaybiyeen laba qaybood oo noqotay qayb go'aansata inay dalka ka baxaan oo ay olole iyo dhaqaale ururin u sameeyaan la dagaalanka ciidamada etoobiya iyo qayb ku hadhay gudaha dalka si ay u hoggaamiyaan dagaalka bartamihii bishii janaayo ee 2007 mid ka mid a hogaamiyaashii ugu sarreeyey maxaakiimta ayaa ku soo laabtay muqdisho isagoo ka yimid dhinaca koonfurta soomaaliya kaasi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maxaakiimta islaamiga sheekh cabdulqaadir cali cumar waxaa isna sidoo kale muqdisho ku soo laabtay taliyihii ciidanka maxaakiimta aadan xaashi cayrow oo isla jagadaasi ka hayay xarakada shabaab dhexdeeda magaalada muqdishona waxaa si rasmi a uga bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah hase yeeshee maxkamadaha iyo shabaabku waxay isku afgaran waayeen markiiba istiraatiijiyada iyo qaabka loola dagaalamayo ciidamada etoobiya balse mas-uuliyiinta maxaakiimta oo marka horeba aasaaskooda uu saldhig u ahaa shacabka waxay go'aansadeen inay horseed ka noqdaan iska caabin shacab iyo soo noolaynta waddaninimadii soomaaliya waxay mas-uuliyiinta maxkamaduhu aasaaseen dhaqdhaqaaqa la magac baxay muqaawamada ama wax iska caabinta sheekh cabdulqaadir cali cumar ayaa loo doortay hogaamiyaha muqaawamada magaalada muqdisho waxaan umalaynaya wax aan wiilka dhamayn ayaan ka maqnaa maaqaan 6 beri ayaan filayaa 6 beri kabacdi dib aan ugu soo laabtay magaaladiina waa nimid markaa nimideed markaas kabacdi waxaan bilownay in oo dadkii oo
joogay meesha oo maxkamadii ka tirsan aan isku raadino fadhiyaal aan samayno laga doodo laga hadlo markaas sidii wax loo bilaabi lahaa iyo wax loo aabuli lahaa muddo yar ka bacdi waxaa noo suura gashay inaan guddiyaal aan samayno inaan dadkii aan u baahnay oo dhan aan aragno inaan ciidamada dib u abaabulno markaas ka bacdi marka ayay saas ku bilowdeen marka hawshii muqaawamada waxaan maqalay in sidaasoo kale iyagana magaalada ay ku soo laabteen xubnihii dhinaca ciidanka u qaabilsanaa ururka al-shabaab siiba aadan xaashi cayr oo kale marka waxaad iga warantaa muqaawamadii iyo al-shabaab mar kale siday iskula saan qaadeen markii aan soo laabanay kulamada aan samaynay inagu dadkii oo shaqayn jiray oo saraakiisha ah dhammaantood kulli wixii magaalada jooga o dhan waa la kulanay waa aragnay shabaabku markii ayagu ay dagaalkii lagu soo jabayba ayagu go-aan kale iyo qorshe kaloo ay hore ulahaayeen bay ay qaateen marka inagu dadkii muqaawamada bilaabay oo magaalada muqdisho kusoo laabtay waxa weeyaan anagu ayaga markaan aragnay oo qaarkood aan la fadhiisanay way diideen inay si oo maaragtay wadajir ah ay maxkamadaha intoodii kale ay wax ula wadaan fadhiyo aad u badan ayaan raggoodii meesha kusoo laabtay ama joogay aan la fadhiisanay arrin oo war haddii wadankiiba hadda waaba la haysaayo deed waa gacanba kuma jire deed see ku fakeraysaa aad keligiin aad gooni u istaagtaan ama aad dadka aad khilaaftaan marka fikradoodii markaan dhegeysanay aan la doodnay waxaa noo soo baxday inay aad u fog yihiin oo aynan ogoleynba ummad kaleba inay wax la socdaan oo dadka kale o dhan ay u arkayaan yani dad qaldan inay yihiin oo majidka qaldan ku socda waa garta marka iyagu markaad dhahdeen dagaalkan aan wadagallo istraatiijiya aan samaysano midaysan maxay u diideen dee waxay u diidayaan waxay rabaan iyagu si gaar ahoo markaas iyagu ay ku qanacsan yihin wax u samaystaan bay rabaan deed ummad kale hadda inay wax ku darsadaan ama ay la socdaan ma ogola nimankan deed sida aad la socotaba dabeecadooda waxa weeyaan wax iyaga ka soo hara cid markaas ay ugu talagalaan inay ku meel gaaraan maahe inay maaragtay iyagu markaas ay cid intay wax ku darsadaan ay la socdaan ma ogola dagaaladii xoogga lahaa ee u dhexeeyey muqaawamada iyo ciidamada etoobiya oo garabsanaya kuwa dowladda federaalka ayaa ku fiday magaalada muqdisho dagaalada xooggoodu waxay bilowdeen dabayaaqadii bishii febraayo 2007 kadib markii ciidamada etoobiya ay isku dayeen inay xoog ku degaan garoonka kubadda cagta ee staadiya muqdisho iyo warshadii hore ee baastada inkastoo ciidamada etoobiya ay qabsadeen meelahaasi haddana waxaa la aaminsan yahay inay uga dhinteen ciidamadii ugu badnaa ee mar keliya kaga dhinta soomaaliya tan iyo dagaalkii iidaale iyadoo ay boqolaal ka dhinteen ciidamada etoobiya sidoo kale dagaaladu waxay ku faafeen gobollada hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose baay iyo bakool bilihii maarso abril mey iyo juun waxaa si weyn kor ugu kacday shacbiyada muqaawamada taasina waxay dhabarjab ku noqotay ururka al-shabaab caqabadda kale ee al-shabaab soo wajahday waxay ahayd mid ka timid dhinaca hoggaankooda waxay dowladda etoobiya gobolka jubbada hoose ku qabatay oo ay xirtay guddoomiye ku-xigeenkii ururka al-shabaab sheekh axmed madoobe oo dhaawac ah waxaana la geeyey dalka etoobiya kadib qabashadii axmed madoobe bishii mey dabayaaqadeedii waxaa dowladda maraykanku ay qabatay hogaamiyihii ururka al-shabaab ismaaciil maxamuud maxamed caraale oo lagu qabtay dalka jabuuti isagoo ku sii jeeday dalka eritereya waxaana toddobaadkii ugu horreeyey ee juun loo wareejiyey xabsiga guwantanamo bay shacbiyad la'aanta iyo hoggaan la'aanta waxay ku qasabtay al-shabaab inay mar kale ku soo dhex noqdaan maxkamadihii iyo muqaawamadii waxaana u sahlanaatay inay si dhib yar mar kale ugu dhex milmaan muqaawamadii mar haddii cadow keliya ay wada leeyihiin kumilanka al-shabaab ee muqaawamada waxaa sahlay hoggaanka cusub ee ay doorteen al-shabaab sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abuzubayr ama axmed cabdi godane oo si weyn ugu tirsanaa taliyihii ciidanka maxaakiimta aadan xaashi cayrow iyo afhayeenkii ururka sheekh mukhtaar roobo cali abumasuur haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid